hayso waligaaba gacan sarre عدكينا وقوليليا عدكينا وقوليليا هاتي ما تتاقنتها هنكي ساينو صوبان ديجي هذا الكبودي قولها هاي نوتاقي عدكينا وقوليليا عدكينا وقوليليا نفتي سور ومرشو برشدو ويكستا هيبتي بشنوريو garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka shaqaalaha Ibrahim Aadan Oqoobe oo ka soo kici timay wadanka Mareykanka waxaana gudoomiyuhu faafka hore madaarkaasi uu kala kulmay soo dhaweyn ballaaran oo ay taageerayaasha ururka ugu sameeyeen ugu horreynna waxaa madashaasi soo dhaweynta ka hadlay siyaasiyiin waxgarada cuqaal madax dhaqameed dhalinyaro kuwaasoo dhammaantoodba sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta gudoomiyahooda inaynu ku soo dhaweyno gudoomiyaha mustaqbalka ee ururka shaqaalaha maanta oo bishu tahay 26 bishii 7 ay tahay halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka shaqaalaha oo si mug iyo biimaan aan ku soo dhaweynayno aadna loo rabay ayaan halkan ku soo dhaweynaa maanta soo dhawow Ibrahim soo dhawow dadku aday bacadka ku taagan yihiin soo dhawow taladeena waa midayn soo dhawow Ibrahim waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka shaqaalaha ahna madaxweynaha mustaqbalka ee soo socda saama ku dooranay dalka linka midaynaya mustaqbalka siyaasadda cusub la dooranayna ilaadan uu qoobay isagaynu diyaarunay isagaynu taaganahay waxaanu ku soo dhaweynaa gurigiisii hooyo inagoo dhammaanteen waa nin nasiib wanaagsan waa nin nasiib badan wuxuu la soo kulmay xilligii la furayay ururada la furayay iyagoo kuwii hore iyo kuwa dambe isku mid yihiin waxaanu u rajaynaynaa oonu haddii alla ka dhigay ilaahay weydiinaynaa saddexda soo hadha ayuu mid noqonayaa ka koowaad buu noqonayaa waana lagu yaqaanaa tiitima caddateedii buu keenayaa madaxweynaha mustaqbalka Ibrahim Aadan Oqoobe ku soo dhawow dalkaagii hooyo ku soo dhawow madaxweyne adigoo madaxweyne mustaqbalka ku soo dhawow dalkaagii hooyo waxaan leeyahay dhalinyaro iyo waayeelba inaynu u doorano madaxweynaha mustaqbalka diyaar ma u nahay
soo diyaaru ma nihin ku soo dhawow haddaba dalkaagii hooyo soo dhoweeyey guddoomiyaha ururka shaqaalaha Somaliland ee dhallinyarada una taagan madaxweynaha mustaqbalka inuu noqdo ayaan ku soo dhaweynayaa waxa weeye haddaba marka la leeyahay shaqaalaha u qaadanina kuwan darawalinta habarta adhiga raacdaa waa shaqaale inanka maqaadahaya waa shaqaale ka geela raaca waa shaqaale taqaadka iibisa waa shaqaale kuwa bilaa camalkii waa shaqaale dhammaan dadkoo dhan baa shaqaale uu guddoomiye u yahay waxaan leeyahay haynu u diyaargarowno waa soo dhowaynaynaa waa loo baahnaa waana lagu xiisaynayaa ibraahin aadan owqoobey guddoomiye soo dhowow caafimaad ku soo dhowow ninkii diidayowna dilaac maanta dilaac walaalka ibraahin aadan ibraahin inuu ilaahay ku garab galo maanta magacaabay iyo kuwa kaloo badanba insha Allah taala saynu soo dhaweyno guddoomiyaha sharafta badan aynu sugaynay maalmihii ugu dambeeyay guddoomiyaha waxaan leeyahay insha Allah waxaad noqon doontaa kii dalkiisa iyo dadkiisaba daacadnimo ugu dadaala uguna adeega biidmillaahi kariim ilaahay kugu asturo ilaahayna ha kugu garab galo xilkaasi culus ee aad qaaday biidmillaahi raxmaan naguna taageerada codka ibraahin aadan owqoobi guddoomiyaha urur siyaasadeedka shaqaalaha isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu taageerayaasha ururka uga mahad celiyay sida weyn ay ugu soo dhaweeyeen madaarka cigaal Soomaaliland ha noolaato horta aad baa idinku mahadnaqayaa dhallinyarada aad baa idinku mahadnaqayaa iyo haweenka iyo waayeelka soo dhaweyntan aad samayseen iyo cid kastoo ka soo qayb gashayba dee safar dheer baan soo galay hase yeeshee inaan halkaa stageka edirboodka ka hadalo war meesha dadku joogaan baan tegayaa baan idhi waxaan jeclay hortiina inaan ka hadlo oonan cidlo istaagin oonan ka hadal meel cidla anu waxaan idiin sheegayaa quraata ururka horta waxaa asaasay dad badan anigu oday baan u ahay waxaan idiin sheegayaa inuu burco ka furan yahay xafiiskiisi inuu boorama ka furan yahay inuu ceerigaabana ka furan yahay dalka waxaa hadhay caasimadoo maanta aan imid anigu imid maanta iyo waxaa hadhay sool iyo saaxil innagu ururada baynaan furin ururada waxaa furay sharcigaa ururada furay qof kastoo aan xisbi ku jirin uga furanta inuu urur furo ama ay isu tagaan ama ay ra'yiga wadaagaan guddoomiye qoobe waxa uu sidoo kale uu sheegay inaanu haba yaraatee soo afjarmaynin khilaafka siyaasadeed u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda oo uu ku tilmaamay waxaan idiin sheegayaa haddii dalka aad maqasheen khilaaf baa ka jirana anuu hal wax baan ku sababeeyey khilaafka markaan eegay anigoo martaba ka hadli doonaa waxaa jira waddada tareenku mana maragteen tareenka waa laba baalood isdhinac mara weligood ma kulmaan meelna kuma kulmayaan khilaafka xukuumadda iyo xisbiyaduna waa noocaas weligood laga heshiin maayo salaadiin baa dhex gashay wax walba way dhex gashay waxay isku hayaanna iyaguna ma sheegi karaan innaguna ka garniqi kari mayno aad baan idinku mahadnaqayaa cabdiraxmaan abdilaahi fantastic ariel TV hargeysa